madax iyo shacab oo shalay iyo maanta qoraxda u taagnaa soo dhaweynta qoysaskii laga soo masaafuriyay magaalada Laascaanood ayaa laba gaadiid oo noocyada candhameedlaha loo yaqaan ka soo dejinaya haween, caruur iyo dhalinyaro itaal ahaan liita. gaari kasta waxaa saarnaa in ka badan 100 qof. caruurta qaar oo hinta ka baxayso dadkii soo dhaweynayay way la ilmeeyeen. hooyooyin uur leh oo ciriiriga ku soo jiray saacado iyo maalmo wadada ay ku soo safrayeen. kaaga sii daran hooyooyin umal ah, waalidiin keligooda socda oo caruurtooda meel ku sheegin ayaa qayb ka ahaa. goobta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed qoysaskan dejiyeen oo ah xarunta ADC-da ayaa lagu dejiyay oo teendhooyin looga diyaariyay iyo waliba agab ay ku seexan lahaayeen. waxaa soo dhaweynta qayb ka ahaa oo baaris iyo daaweyn lacag la'aan ah la garab taagnaa dhakhaatiir ka kala socday kuwa hay'adaha ah iyo waliba wasaaradda caafimaadka. dhanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa iyana soo caga dhigatay maanta diyaaradii labaad oo siday qoysas laga soo qaaday magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo garoonka ay ku soo dhaweeyeen wasiirka caafimaadka oo guddiga madaxweynaha arintan u magacaabay ka tirsan, wasiirka warfaafinta, wasiir ku-xigeenka gargaarka, xildhibaano, agaasimayaal iyo mas'uuliyiin kale. duulimaadkan qoysaskan maanta laga keenay magaalada Gaalkacyo waxaa ku deeqay Cabdinuur Daruuro oo ah ganacsade ka soo jeeda Koonfur Galbeed. waxaana ugu horeen ka hadlay imaatinka qoysaskan wasiirka warfaafinta iyo wasiir ku-xigeenka gargaarka. geeka maalintii la maado inuu surugna hadhawaayowka dadkii la ku barakiciyay magaalada Laascaanood ee Soomaaliland way hadhawaynay haddana tiro kale oo meel raayis dadkaas insha Allah wasiirada xildhibaanada iyo gudoomiyaasha iyo mas'uuliyiinta dhan way surunyiina in mar waa hadhawaayan wasaaradda gargaar ahaan waynu diyaarinaynaa 24 saac surugnaa in dadkaasayto tabaalaysan hadhawayna way meel raahna deeray insha Allah diyaarad kale oo sidii dadkaasay diyaaradan way la ka deeqay Cabdinuur Daruuro oo runtii meel raaylan insurun horumarka deegaanadan Koonfur Galbeed way lanahay Cabdinuur eedan maasanta. waxaana soo gaaray dadkii laga soo barakiciyay ama laga soo raafay magaalada Laascaanood ayaana soo gaareen. qaarkoodii waxay ku yimaadeen gawaari ay ku yimaadeen 205 qof ayaa lagu tilmaamay inay yihiin. qaarkoodana waxa weeyaan flight-kii labaad oo maanta ayna soo gaareen. aaday u mahadsan yihiin dadkii arimahaas u istaagay oo gacan ka geystay. flight-kan labaad waxaa ma aragtay bixiyay ama ku deeqay oo qof muxsin ah, walaalkayna ah, saaxiibkayna ah, khayr Allah si ayaa leenahay walaalkayna Cabdinuur Daruuro. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay danqashada iyo ma aragtay dareenkiisa waa ku mahadsan yahay. Ilaahay ka abaalmariyaan leenahay. diyaaradan asiga bixiyay shalayna diyaaradeeda waxa ma aragtay ku deeqay asigana bixiyay nin walaalkayna muxsin ah oo joogo ma aragtay Ingiriiska Cabduqaadir Geesdheere. wasiirka caafimaadka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed kana tirsan guddiga madaxweynaha arintan u magacaabay ayaa dhankiisa ka hadlay. shalayna diyaaradda kariim walaalkayna Cabduqaadir maanta Cabdinuur Daruuro aad u mahadsan reer Soomaaliland haddii dadkii soo garaacdeen oo baawur soo saarteen anigana maanta waxa u jeedaan shakhsiyaadka bixinay diyaaradii lagu soo qaaday dadka say isku jeceliin oo jeedaan markay idinkan aad u mahadsantihiin dadkii sadaqada bixin aad u mahadsanyihiin. ku dhawaad ilaa iyo hadda waxaa Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo soo gaaray sida guddiga soo dhaweynta qoysaskan ku howlan sheegayaan 80 qoys, kuwaas oo laga keenay magaalada Gaalkacyo oo ah meeshii ugu horeysay oo ay soo gaareen markii maamulka Somaliland qoysaskan ay ka soo masaafuriyeen magaalada Laascaanood. Muxuddin Xusni, Universal TV, Baydhabo.